عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. soo dhawaada asxaabta. haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqato channelka, subscribe inoo saar, gambaleelka furo si aad ula socoto casharo ku saabsan barashada luqadda Ingiriiska. casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay English political words. waa kelmadaha siyaasadda Ingiriisiga. English political words waa kelmadaha siyaasadda ee Ingiriisiga. Part 2 waa qaybtii labaad. qaybtii hore part 1 hore ayaynu soo dhiganay. marka waxaan dhigan doonaa part 2 oo qaybtii labaad ah. Media and Cultural Minister, wasiirka dhaqanka iyo warfaafinta. Media and Cultural Minister, wasiirka dhaqanka iyo warfaafinta. Energy Minister, wasiirka tamarta. Energy Minister, wasiirka tamarta. Sport and Youth Minister, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha. Sport and Youth Minister, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha. Public and Social Work Minister, wasiirka arrimaha bulshada iyo shaqada. Public and Social Work Minister, wasiirka arrimaha bulshada iyo shaqada. Government, dowlad. Government, dowlad. Transitional Government, dowlad kumeel gaar ah. Transitional Government, dowlad kumeel gaar ah. Executive Committee, guddida fulinta. Executive Committee, guddida fulinta. Judicial Committee, guddida garsoorka. Judicial Committee, guddida garsoorka. District Court, maxkamadda gobolka. District Court, maxkamadda gobolka. Court of Appeal, maxkamadda rafcaanka. Court of Appeal, maxkamadda rafcaanka. Supreme Court, maxkamadda sare. Supreme Court, maxkamadda sare. aad baad ugu mahadsantahay daawashada iyo dhageysiga fiidiyogan.